sanad waliba bisha Oktoobar 24-keeda waxaa dadweynaha looga dabaaldegaa World Polio Day oo ah maalinta xanuunka dabaysha iyadoo uu yahay xanuunkani inta badan in uusan lahayn daawo kali uu leeyahay ka hortag sida ay sheegeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka. walaalayaal horta waxa waaye magaciisa waxa waaye Isaaq Cabdi, County Disease Surveillance Mandera County. Today is World Polio Day. The eradication polio has been marked for eradication. When we had in 1984 we had the last wild polio virus in Kenya. In 2013 we had 14 cases in Dadaab. cudurkan waa cudur dilaa soo bilaal bano sheegay cudur dilaa waxa keena nadaafad darro keenta cudurkan waa fecal oral alda fecal oral waxa waaye saxara as virus ka polio ku jiro oo afkaada gaar waxa jira dad badan oo socdo oo caafimaad qaba oo cudurkan caloosha ku sita dadka ayaga markay saxaroodaan wuxuu gaariyaa biyo gaariyaa biyihii markaas cad ama raashin oo contaminated with the polio virus as cunto markaas cudurku ku dhacaya cudurkan is sudden onset habeenkii cunuga asagoo wax baqayn oo saxanaya salaadii wuxuu soo kacay asagoo lug iyo gacan ay leeftay soo kacay marka waxa la rabaa markaas cunugaada waxaas ku aragtay afri tambari gudahood waa inaas wasaaradda caafimaadka as ogeysis cunuga sadana ku arkay gacan uu leef ka yahay lugo leef ka yahay markaas waxa laga qaadaa samples stool sample laga qaadaa saxara laga qaadaa waxa loo diraa kimri waa la soo ogaanaya marka inuu cunuga polio qabo inuu qabana la soo kala ogaanaya markuu soo tooso cunugaas intuu oo istaagi karin oo gacmihi ku diyo daciif tafadal isla markiiba istaalka laga baaray polio fayba maxay idinka codsanayaa dadkii partners oo meeshan Mandera joogaan iyo dadkii wasaaradda caafimaad inaan isla shaqeyno si fiican polio waddankaani oo county-gaani aan ka reebno si fiican oo ilmahayni si fiican noo kari doonaan iyo dadkii caafimaadka kuwii disease surveillance u weyn yihiin maxaan rabaa inay meel kasta aadaan buulayaash kasta aadaan oo si fiican ka fiiriyaan polio si fiican ilmahayni si fiican kori doonaan insha Allah ويبو انت سنبا idin sheegi doona maan World Polio Day waaye ku soo dhawaada shukran jazakallahu khairan. haddaba maanta magaalada Mandera ee ismaamulka Waqooyi Bari waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga dabaaldegay iyadoo ay jireen in uu cudurkani dad badan naafeeyay oo ay ka mid yihiin caruur iyo dad weyn intaba. mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada Mandera oo cudurkani naafeeyay ayaa waxa uu bulshada ku nool Mandera ugu baaqay in ay caruurtooda geeyaan goobaha caafimaadka haddii ay ku arkaan calaamadaha uu cudurkani wato. waxa uu tusaale u soo qaatay xilli oo isagoo yar xanuunkani uu la soo darsay uusan fursad u helin goobaha caafimaadka waalidkiisna ay ahaayeen kuwo xoolo dhaqata. Anoo ahay polio champion waxaan ahay victim of polio anoo yaraas cudurkan ugu dhacay anoo 2 jir amal sida la sheegay taas ugu dhacay waa gaas talaalkan oo guri la wareegayo oo dadka la talaalay isbitaalada la keenay ma lahayn hadayna xoolo dhaqataayade in the process talaalka rangafi saasaan oo oriyaamoobay ilaa hadda oriyaanimada waagaas labada lugoodba paralyzed aan ka yahay halka dadweynaha waxaan ugu degayaa calaamooyinka cudurka marka la arko si degdeg ilmaha isbitaalka inay geeyaan. geesta kale waxaa jira caruur ku nool baadiyaha iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka in ay la ildaran yihiin xanuunka cudurka polioda. Ibrahim Abdullahi Ibrahim Daacad, Radio Bilan, ismaamulka magaalada Mandera.